السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u salaamantiin akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee halkan igala socda oo aynu ku soo dubno horumarka Hargeysa iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee magaalada gudaheeda ka socda. maanta waxaynu soo booqannay dhismihii suuqii Waaheen oo in muddo ah socday oo la dhisayay. suuqan oo ahaa mid halbowlo waa isu socodka dhaqaalaha guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland. halkan oo lagu ganacsan jiray ayaa gubtay muddo ka hor, hadda muddo laga joogo 2 sano. waxay ahayd 2022 bishii Abriil bay ahayd sidaan xasuusto haddaanan qaldanayn. marka iminka in muddo ah sanad iyo jarjarba 2 sano ku dhowaadba suuqani waxa uu ahaa mid dib loo habaynayo oo dib loo dhisayo. galabta ayaynu soo booqannay suuqa, waad arkaysaan dhismayaashu halkay marayaan iyo gebi ahaanba xaaladdu halka ay marayso. galabta waxaan ka soo galay suuqan Waaheen dhismihiisan socda dhinacyo kala duwan oo wadooyin kala duwana. marka hore waxaan ka soo bilaabay bartan oo ay ka socdaan oo gebi ahaanba horta dhismayaashan la dhameeyay, inkasta oo la sameynayo drainage-kii ama meelihii ay biyuhu marayeen ililadihii loogu talagalay markuu roob soo da'o ay la sameynayay. masaajidkaas waa masjid Nuur weeye oo ah isna masaajid ku dhex yaala suuqa bartamihiisa. waa masaajid weyn oo caan ah. marka suuqu waxa uu dhisan yahay inaad muuqaalo kala ka aragtay ma filaya, qaybo kala duwan oo si fiican baa loo balaangareeyay oo dhismihiisa loo qorsheeyay. meelo baabuur mari karto, dabdabisku mari karo, dadweynuhu mari karaan, xataa baabuurta waaweyn laga rari alaabta laga dejin karo ee suuqa soo galaysa, taasoo markii hore cidhiidhi. iminka waxaynu dul maraynaa meelahan biyaha loo sameeyey oo loogu talagalay inuu biyuhu maraan xilli roobaadyada. marka tanna waa muhiim bay aad ugu tahay, waayo suuqu markii hore muu lahayn meel ay biyo maraan. markuu roob weyni soo da'o meel walba biyaa inkastuu dadnaa suuqan gudihiisu, laakiin haddana waxyaabaha meelaha qaar qoyaan badan baad ka arkaysay. guud ahaan suuqu almost 80% waa la dhameeyey. qayb baa socoto aynu soo eegi doono oo ah qaybtii ay dowladda hoose maamuli jirtay ama ay kireen jirtay ayaa xaggan laga dhisi doonaa oo iyaduna dhowaan la bilaabay oo beyskii iyo seeskii iyo sabadihii la dhigay. suuqa guud ahaan dhismayaashiisu waa isku wada kalar oo waa isku wada design, si aan loo kala duwin. isku shirkad baa samaysay, waxaa samaysay isku hal kalar baa laga dhigay si aanu suuqu u kala duwanaan. inta badan suuqu waxa uu isdul saaran yahay dhismayaashu garoonka iyo mid ka sarreeya ama 2 ka sarreeya ama 3. group kasta ama dadkii lahaa dhismuhu sidii ay u jeclaadeen ayay u dhisteen oo waxay sii saareen dabaqyo kale ayay sii saareen. waa hagaag. haddaba qaybtanna waxay ka mid tahay dhismayaal sii jeeda oo ay lahaayeen dadweyne kale oo ganacsato ahi oo xilligaasi dhismaha meeshan ku gubtay. iminka halkan waxa weeye waxaa loogu talagalay isna dhismo yar baa loogu talagalay. dhismayaashaasina way dhammaadeen, kaasina waa u socdaa. waxaynu u dhaqaaqi doonaa haddii alla yidhaahdo dhankaas iyo xagga galbeed baynu u dhaqaaqi doonaa oo waxaynu soo ogaan doonaa bal qaybaha kale ee dowladda hoose iyo meelaha kale bal sida ay u socdaan. waa hagaaga waynu soconnaa. suuqa gebi ahaanba ciid kala duwan baa taalla oo iyo waxyaabihii looxaantii iyo wixii lagu dhisayba ayaa dhex yaalla gudaha. laakiin marka meelahan la hagaajiyo oo sidaan maqlay la marin doono, marmar la marin doono oo nadaafadiisu ay noqon doonto. suuqa nadaafadiisu aad bay u fiicnaan doontaa. halkan waxaa fadhiya shaqaalihii dhismaha dhisayay qaarkood oo dhismayaashan ka howlgala. qaybtana waa qayb kale la dhameeyey. waxaynu sidoo kale dul maraynaa bartii loogu talagalay biyuhu inay maraan oo meelahan ah oo xiliyadan oo kale halis oo dadku ay ku siiban karaan ama ay ku dhici karaan. qaybahan oo dhan waa la dhameystiray. albaabadan wad arkaysaan ee xaggan u soo jeeda
run ahaantii suuqu wuxuu noqon doonaa suuq aad u ballaaran oo sida dadku rajaynayaan ku soo celiya ganacsato badan xoolahoodii haddii la yidhaahdo xoolahoodii u soo celiya iyo maalkii meesha kaga gubtay dhalinyaro badan iyo dad waayeelo badan ee meesha ka shaqayn jirayna rag iyo dumarba ahna ay shaqooyinkoodii ay ka sii wadan doonaan qaybta jiingada ku xidhan oo aynu u dhowaan doono dusha kaga qaban doono waxa weeye hadda qaybtii ay dowladda hoose ay maamulisay dhisisay maxay tooley waxa weeye qaybtaas waa qayb ballaaran oo dhismayaal fara badan leh xaggaana waxaa isna dhismaa socda oo isagana farta lagu hayo walow dhismahaas imika muddaba uu socday oo uu sidaas ahaa waxaan filayaa in laga yaro mashquulay oo laakiin dib loo bilaabi doono qaybtan dowladda hoose ayaynu ku dhowaan doonaa ay dhisayso oo jiingada lagu xidhay inaad aragtaan baan filayaa jiingada ayaa dheerayd markaa sabadihii baa la taagay garownkii iyo seeskii hoosaa la dhigay maxay tooley waa adinka arkaya qaabka ay u socoto wajahada kalena dhismayaasha aynu soo marnay baa ka soo jeeda oo meesha waxaa laga sameeyey wadooyin isugu kala gooshaya dhismayaasha kala duwan iyo qaybaha kala duwan suuqa qayb kastana qofka wax ka iibsanayaa si yaroo fudud buu ku tegayaa isagoo dhex maraya meelahan kale isagoo oo sii dhex maraya oo aan soo wareegahaynba wadooyin iyo meelo kale oo laga baxo loo sameeyey jiingada dheer baa lagu hareereeyey oo lagu dhajiyey marka waxaynu dul maraynaa ciidan yar baynu dul maraynaa oo ah ciiddii meesha laga soo qoday waxaynu u wareegaynaa dhankaas iyo xagga bari baynu soconaynaa dhismayaasha hadda dhanka bidix naga soo eegaya ayaynu soo eegaynaa bal sida ay iyaguna ay u socdaan waa la dhameeyey laakiin meelihii hoose drainajiskii iyo meelihii kale nidaamkii hoose oo dhan baa la wadaa suuqu maadaama uu muddo socday looxaan fara badan iyo waxyaabo badan oo xashiisha ayaa meesha daadsan oo meesha waxaad ka garanaysaa inay shaqo culise ka dhacday oo dad badani meeshan ay ka shaqaynayeen oo hawl badan ay gashay ayaad garanaysaa markaad meesha soo dhex marto inkastoonay habboonayn in meelahan oo kale la dhex maro oo ay dadka qaarkood ay ku siibanayaan oo ay wax ku noqonayaan qaybtan kale ee bariguna waa tan waxa weeye run ahaantii saan idiin sheegay waa isku wada qaab oo waa isku wada kalar dhismayaashu iskusina waa loo wada dhisay drainajisku si fiican baa loo qaabeeyey oo hadhow biyihii ka soo dhacayay dhanka sare ee buurta idaacadda ayaa ama xaggaa ka soo daadegayey ee xaggan suuqa soo gelayay ayaa haddii ay biyahani soo galaan bay aayar meelaha dhexe ee loo sameeyey ililadaha yaryar ay ka baxayaan waxyaabahaan dareemay waxaa ka mid a markaan suuqa soo galay waxaa joogay oon arkay qolooyin carab bay ahayd talo mise turki bay ahaayeen inkastoo ay carabi ku hadlayeen ayaa dhismayaashan samaynayey oo meelahan ka howlgelayay waynu dhowaan doonaa halkayna ka nimi waa xaggaas weeye albaabadana waxay u diyaar yihiin maalin dhow in lagu ganacsado oo lagu shaqaysto insha allah sida ay dadweynuhu ay rajeynayaan markaas suuqan isku soo wada duubo wuxuu socon doonaa baan anigu markaa qiimeeyey sidii muddo ku dhow sanad kale kama yara inta uu sii socon doono marka waayo waxyaabo badan baa harsan oo aad u fara badan in qayba la sii furo wax dhici karta inkastoo laakiin uu ku wada fiican yahay in mar la wada furo oo mar farta laga wada qaado oo ay xukuumaddu ay mar xariga ka wada jarto waxaynu dhex maraynaa hadda meelihii dambe aan idiin sheegayay ee dhanka suuqa xagga bari xagga galbeed xigay waa xaggii galbeed xaggani ayaynu soo marnay marka horeynu soconaynaa waxaynu soo eegaynaa dhismayaashaasaynu soo eegaynaa marka akhyaarta qiimaha badan bal waxaad nala wadaagtaa halkaad naga daawanayso iyo waddankaad nagala socoto commentigana ama faallada nagula wadaag fikirkaaga iyo waxyaabaha aad ka aaminsan tahay bal suuqan iyo wararkii iyo waxyaabaha aad ka heshay iyo fikirkaagaba in qaabkan loo dhiso yahay qaab aad u fiican iyo sidoo kale
suuqan sidaad u rajeynayso in dib loo furo oo ay dadweynihii reer Somaliland ay dib ay ugu ganacsadaan bal aragtidaada commentiga noogala wadaag sidoo kale muuqaalka like noogu dhufo si ay dad badan muuqaalka ay u arkaan uu muuqaalku u gaadho xaqeena ka nimi waa xagaas weeye jingadan dhismayaasha lagu hareereeyay shadoodeena ka nimi xagaas weeyna ka soo wareegnay dhismayaashana waa qaar kale oo waliba qaar kalena ay ka sii shisheeyaan suuq urnaantii hal muuqaal iyo laba muuqaal midna laguma soo koobi karo waayo waxa weeye suuq aad u baaxad weyn oo meelo kala duwan laga soo galayo dhanka koonfurta bariga waqooyiga meelo kala duwan mid kale waxyaabaha adagna waxa weeye meelo badan baa godad laga qoday godadkaasi waxa weeye lama dhaxmari karo oo ciid badan baa dul taala oo meelo qodan baa jira oo dhulka kula dhacayso marka halistiisu leeyahay dhimaal dhismo oo dhismo ka socdanayna lugaha la soo gasho oo too dhex martaana waa qalad waa waxyaabo badan biro badan biraha kugu soo dhici kara marka kulama talinayo dadweynaha iyo akhyaarta daawanaysa inay hore u daawadaan gudaha ay u galaan waayo meelahaasi waa meelo aad u halisa intuu qofku eegayo dhismaha sare ayaa meel lugta la geli karaa ama meel god oo ku dhici karaa marka dad badan oo iska dhex marayeen waa jireen oo dadkeena od garanaysan Soomaalidu meel walba iska dhex maraan riski iyo dhibaato iyo waxa ma eegaan laakiin sida caadiga ah dhismayaasha iyo meelaha goobaha dhismaha looma dhawaado dadweynaha suuqa ku ganacsanaya ayaguna dhex maraya oo howlahoodii ganacsiga iska wata oo u kala gooshaya qaybaha kala duwan ee suuqa marka akhyaarta qiimaha badan intaas baynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeeni aynu ku sameynay dhismaha suuqa Waaheen iyo halka uu marayo waxaad codkayga ka maqlaysaan dad aan isgaranayno meesha isku aragnay oo la sheekaysanayo marka si kastaba haata muuqaalka like ku dhuftaa commentigana ka bixiya siina share gareeya saasiyo nabadgelyo